getachew reer afhayeenka TPLF oo dhowr su'aalood la weydiiyey ayaa su'aalihii la weydiiyey qaar kamid hadan soo qaadano waxa la weydiiyey oo kamid ah dagaal 2 sano socday hadda ma heshiis ayaa lagu soo afjaray ayaa la weydiiyey getachew reer wuxuu ku jawaabay ma dhamaan waanu joojinay xabadii kaliya macnuhu ma aha buu yiri in dagaalku dhamaaday xabadda oo kaliya ayuu baan yara qaboojinay buu yiri laakiin se dagaalkii muu dhamaan hadda tiin madaxa Tigray gabaa lagu yiri ma ka qoomamaysan dagaalka aad la gasheen dawladda Ethiopia Getachew wuxuu yiri wax qoomama ah kama qabo dagaal baana lagu bilaabay waxaan ku faanayaa in aan u halgamay ilaalinta sharafta dadka Tigrayga wax qoomama ah kama qabo waayo waxaan la dagaalamay wili cadawga dadkayga si aan u difaaco doominta markaas lagu hayo dadkayga haddaba hadaladan uu ku hadlayo Getachew reeda ayaa waxa ay cadeeyeen balaydi in TPLF-tu isdhiibistan iyo nidaamkan moogta heshiisyada galaysa kulli ay markaas jirto khiyaano qarsoon khiyaanadaasi oo ay doonayaan ku moogta dhex galaan xukuumadda Ethiopia ku kala qaybiyaan hadhowna ay galka seefta kala baxaan wili hada xubkii bay dhiibin baa leeyahay way diideen inay dhiibaan waxa la yiraahdeen ilaa iyo ciidanka Eritrea gabi ahaan laga saarayo Tigrayga mooye anagu ma dhiibin bay yiraahdeen haddaba cidda qabtay inay isgaabinayaan oo markaasi ay siyaasad qabow iyo shax khatar ay degeen oo ay markaa doonayaan inay sidii moogtahay maski oo kale de ay hadhow toole ku soo laba kaclayn doonaan isgaabinayaan waxa sidaasi u hadlay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki waxa uu yiri cidna ma jeebada surwaalka kuma qaadan karto saaxiibtinimada iyo iskaashiga Eritrea iyo Ethiopia mustaqbalka uu sii xoogaysan doona hadii nabadii timaado dhamaanteen way inaanfacaysaa waxba inama yeelay doonto buu yiri marka nabadda timaada balse si fiican baan u naqaanaa buu yiri habdhaqanka TPLF cidna jeebka kuma qaadan karto masbuu yiri sidaa darteed TPLF waa masbuu leeyahay wuxuu leeyahay jeebka gashatid maruun bay ku qaniinaysaa ogaad abiyow marka hadaladan uu ku hadlayo Afwerki ayaa waxa ay noqotay markaasi shaki badan oo ay ka muujinayaan xitaa kooxaha inta badan si madax banaan u moogtay analyze karaya ama ku galarimaha Ethiopia oo sheegay maalmahanba in TPLF kolba moogtay laga yaabo shax kale laba isku qaybiyeen moogtay koox waysan oo TDF la yiraahdo iyo koox xagga siyaasadda waa ku lahaa marka isqaybin badan bay sameynayaan kolba siyaasad bay degayaan aakhirka waxa ay doonayaan marka in ay helaan dhulkaasi walqaayad iyo markaasi raaya oo ay corridorka Suudaan gacanta ku dhigaan intaas uu daleeyay balaydi si ay hub culus halka uga helaan iyo moogta teknolojiyada casriga qaar ba sida qaba Afwerkina waxa uu leeyahay sida isku ka gaabinayaan abiyo aakhirka way ku culi doonaan dhinaca kale wuxuu rajo ka muujinay uu leeyahay wili ra'iisul wasaare abi waxaan leeyahay uu leeyahay ku soo noqon saaxiibtinimadu waxa weeyaan in mowqifka Eritrea la qaato wixii wada hadal iyo nabad ahna markaas halka la iska dhigo galka seefta laga baxo dagaalku shaqeeyo nimankan moogta xabad loo soo xiro maamulo TPLF-ta oo moogta xabsiyada lagu garo dagaalkana inuu shaqeeyo uu doonaya marka Eritrea iyo Axmaaraduba haddaba abina waa kan maanta hadlay ee sheegay ee yiri sharciga sareynaya hadduu abi ku yiraahdo dagaal baa la gelaya weeyaan waxa weeyaan cidna sharciga kama weyna aad ugu adag yahay sharciga moogtay markuu Tigrayga dagaal ku qaaday sharciga sareynaya buu yiri Axmaarada maanta wadada markuu ku qaadayay moogtay kooxii faano dagaalka sharciga sareynaya buu marka xitaa Oromia ku qaaday oo dagaalka sidaas leeg sharciga sareynaya hadduu ku yiraahdo waxa weeyaan waa hawl dhamaatay taa macnaheedu waxay tahay in walqaayad uu doonayo mar hadduu yiraahdo sharciga lagu beesgareeyay taa macnaheedu dagaal baa daba socday hal ogaado weeyaan Axmaara iyo abina gacan bay saari doonaan Eritrea iyo abina gacan bay saari doonaan marka TPLF ay raaci doontaa hadhow toole hadii dagaalkaasi qarxo ayaa la isweydiinaya oo waqti balina ay taageeri ma abibi ka kala dagaalami doonaan ciidankiisa mise way isku daawan doonaan oo moogtay kii roorka u soo haray eegi doonaan mise yacni bal roolka TPLF noqon doono dagaalka dhex mari doona abi iyo Axmaaro iyo Eritrea wada socda oo abi la dagaalamaya markaasi yay raaci doontaa TPLF markaasi ayaa hadda la sii weydiinaya waa u dhacaya bisha soo socda iyo moogtay bartankeeda dagaalkaas uu bilaamaya laba cali isma weydiinayaan oo u dhici doonaaye TPLF yay markaasi taageeri doontaa su'aashu weey
taa laba cali isma weydiinayaan waa xaqiiq waxaanay ka caddahay moogtay sida dharaarta in haddii uu abi yidhaahdo sharcigan hirgelinayaa oo dhulkaasi walqaayad sharcigii xuduudaha moogtahay u yaalla Ethiopia dastuurka la waafajinaya hadduu yidhaahdo oo sharcigan hirgelinaya waxa weeye taa macnaheedu axmaarana waxay oranaysaa awoyaasha lahaan jiray ma yeelayno wax gorgortana kama gelayno hubkay qaadanayaan Eritrea markaasi dee watan hadda taageeraysa barikaabaysa halkaasi dagaalkaasi inuu qarxayo haddaba bishan gudaheeda ayaaba laga yaabaa maar allaaliya markaad soo imika tallaabada xigta ee isku imanayaan moogtay waxaa matalaya xukuumadda Itoobiya Tigreegu waxa weeyaan sidii looga wada hadli lahaa nidaamka muranka xuduudda sidii moogtay sharciga Itoobiya loo waafajin lahaa istabkaas haray maadaama hadda laga heshiiyay nidaamka hubka dhigista iyo moogtay processkii oo istabiska la qaadayo oo ugu horeysay moogtay hore ciidamada Eritrea la saaro kadibna marka Tigreeguna hubka soo xareeyaan hawshaas imka ayay bilaabmaysaa waxa ku xigay waxa way noqonaysaa in marka laga hadlo murankaasi dhulka mar haddii loo fadhiisto la yiraahdo sharciga la waafajinaya abeena uu yiraahdo sidiisii sharciga sareynaya isagu way kaga dhagantay moogtahay mar hadduu yiraahdo sharciga sareynaya hirgelinaya sida uu maantaba cuskaday maanta sharciga iyo moogta qawaaniinta wadanka u yaala ayaa lagu xalinayaa buu yiri cidda sharciga kama sareyso taa macnaheedu waxa dharaarta ka cad oo halka aynu ka fahmaynaa in marka sharciga u yaala Itoobiya hadda uu 100% siinayo dhulkaasi Tigreega waayo dee nidaamka qowmiyadaha iyo moogtahay shuruucda Itoobiya hadda u taaleeyo xadadka u yaala deegaanada oo dhami halka dastuurkaasi ku cad yihiin waxaana yeelanaya marka Tigreeg oo ay ku qoran tahay haddaba haddii abi yiraahdo hadda kaga dhabeeyo marka inuu sharciga hirgelinayo waxa halkaasi markaa ka bilaabmay dagaal xooggan oo dhexmaraya Axmaaro iyo Tigreeg waxaana hadda aad uga caadhoodeen Axmaaradu hadalkiisan maanta ku hadlay yiri sharciga iyo xuduudaha u yaala Itoobiya iyo qawaaniinta sharciga yaala ayaa la waafajinaya la hirgelinaya mar hadduu yiri Axmaaro imka dagaal buu diyaar galowday haddaba weli hadda moogtay waxa ka dhursugayaa afaweerkii oo moogtay madaxweynaha Eritrea iyo Axmaaraduba bal inuu ka noqdo go'aanadan uu gaarayo abi hadda waxa uu taagan yahay laba daran mid dooro ay dhexda ugu jiraan haddii uu moogtay heshiisyadan diido oo moogtay heshiiska nimka la galay Pretoria xabad joojinta lagu dhawaaqay iyo heshiiska kale ee ku lifaaqan ee ah in wada hadal dhulkaasi lagu murasay lagu dhameeyo hadduu markaasi ka meermeeru hirgelin waayo Tigreeg way ka cayaan dhulkaygii baad moogtay maqam taasay hayaan marka dagaalka kaas ka bilaabmaya kadibna dib ay TPLF iyo xukuumadda Itoobiya u dagaalamayaan ciidankoodu taasina waxay keeni doontaa in reer galbeedkuna cunaqabatayntii Mareykanku horboodiyo moogtahay ay jiqka ka dhigi doonaan Itoobiya sida imkaba ku sameeyeen kadibna dhaqaalaha Itoobiya waxyeello weyn ay u geysan doonaan taasina ku kalifi doonto in markaa haddana isdhiibo marka in tallaabooyin ka qaadaan ma doonayo dhinacan kalena Axmaara iyo moogtay in madaxa isla galaan Eritrea oo dagaalamaan ma doonayo waa laba daran ma dooro ayuu abi ku jira xaaladiisuna waxa la sheegay hadduu yiraahdo sharcigan hirgelinaya way u dhamaatay Axmaaro waka caleeha weyn dagaalka kaas ka bilaabmaya dhinaca kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen xubno baarlamaanka ayaa sheegay in Shine ay yihiin koox abaabulan oo aan dantooda la ogeyn buu yiri waxa ka hadlay OLA oo la sheegay iyagana maxaad u soo moogtay xabad joojin ugu sameeyay weyday u leeshiin weyday baa la weydiiyay waxaanu yiri dantooda iyaga lama garanayaba isla markaana wuxuu yiri waxay baabinayaan oramada Shine wuxuu sheegay jabhada oramada waa koox caqabad ku ah buu yiri hawlaha horumarineedka ee ka socda Oromiya si aan horumarka u dhicin ayuu markaasi ra'iisul wasaaruhu ku andacooday ma jirto wax faa'iido ah oo laga helayo buu yiri in dad aan waxba galabsan la laayo baabuurna la gubo waxa kale oo sheegay ra'iisul wasaaruhu ma jirto buu yiri xorriyad dimuqraadiyad iyo sharaf argagixisada ay leedahay waxa uu kaloo markaasi hadalka uu ku daray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in Shine uusan lahayn nidaam maamul sida darteed dadka soo diray buu yiri ayaaba ku jahwareersan moogtay iyaga laftirkooda